السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد عبد الله kusoo dhawaada muuqaalkan kooban aan doonaya inaan kaga hadlo habka lacagaha cryptocurrency-ga loogu xidho take profit-ka iyo stop loss-ka isku hal mar iyadoo lagu xidhanayo runtii waqtiyadii hore exchange-yada cryptocurrency-gu may lahaan jirin option-ka kuu saamaxaya markaa inaad hal mar ku wada xidhato take profit iyo stop loss sida forex-ka aan ku naqaanay oo kale laakiin waqtiyadan dambe exchange-yada badankoodu option-kan way leeyihiin hadda waxaan ku guda jirnaa exchange-ka weyn ee Bybit akoonkeeni deemada ayaan tusaalayaasha ku bixin jirnay qaybtan waxay noo yaala markaa lacagihii deemada ahaa waxaan tusaalaha ku bixin doonaa markaa Ethereum waa inuu haysano hal Ethereum oo markaa deema ah marka iyada ayaynu dhexgeli doonaa kadibna waxaanu sii dhexgeli doonaa Ethereum/USDT qaybtan ayaynu nimi dabcan qaybtani aad ayay caan u tahay oo dadka kriptada la macaamila oo dhami way yaqaanaan waa meesha wax laga iibsado wax laga iibiyo waxyaabahaas oo dhan laga sameeyo hadda waxay noogu taagan tahay buy waad ka bedeli doontaa oo sell ayaad geli doontaa sababta waxa weeye optionka aynu doonaynaa wax ku shaqaynayaa sell kadibna khaanadan ay limit ku qoran tahay ayaynu soo furi doonaa halkan dabcan optionno badan ayaa ku jira dhalinyaradu runtii waxay ku khaldameen optionkan TB/SL oo markaa loo soo gaabiyey take profit iyo stop loss optionkaas ayay markaa u fahmeen in uu u saamaxayo inay hal mar ku wada xidhaan take profit-ka iyo stop loss-ka laakiin sidaa ma aha oo isagu wuxuu kaa yeelayaa uun in aad ku xidhato mid keliya ah ama take profit ama stop loss horta isaga aynu eegna suu shaqeeyo qaybtan sare ee hadda ay ku qoran tahay 3000 dabcan waxaad doontaad gashan kartaa maadaama hadda Ethereum ay marayso 2686 saacadan aan hadlayo tusaale ahaan waxaad ka soo qaadaa marka ay gaadho 3000 in aynu doonayno markaa in laynaga iibiyo oo markaa faa'iidada aynu ka qaadano meesha markaa 3000 baynu gelinaynaa trigger price-ka waxaanu loo yaqaanaa trigger price kan limitku ku qoran tahay waxaad ka dhigan doontaa market si markiiba lagaaga iibiyo qaybtan quantity-ga anigu dhammaanteed waxaan leeyahay iga iibi kadibna sell baynu ku dhufan doonaa okay wuu naga yeelay saad u jeedaan orderkii waa laynoo diiwaangeliyey marka hadda waxaynu xidhannay take profit waxaanu suuqa u sheegnay haddii Ethereum-ku ay gaadho 3000 in laynaga iibiyo oo markaa suuqa aynu ka baxno bal aynu isku dayno markaa haddana inaynu ku xidhanno stop loss halkan 3000 inoogu qoran tahay waxaad ka soo qaadaa haddii Ethereum soo gaadho 2500 in markaa aynu doonayno in khasaaraheena la dhimo oo bartaa suuqa laynooga saaro qaybta quantity-gana dhammaanteed aynu markaa iska iibino waad u jeedaan halkan inay zero ku qoran yihiin waxaynu haysanay hal Ethereum markaa wada zero ku soo qoray inagama yeeli doono bal sal aynu ku dhufanno waad aragtaa wuu inaga diiday marka muxuu noo ogol yahay inaanu hal mir ku xidhanno ama take profit ama stop loss haddaynu orderkan hore aynu markaa ka baxno oo aynu orderkan hore cancel garayno kadibna aynu dub u laabanno oo aynu mar labaad isku dayno bal hadda weli halkii sare waxay noogu jirtaa 2500 aynu doonayna markaa in khasaaraheena halkaa lagu koobo qaybtan quantity-ga aynu hadda badino halkii Ethereum oo dhan aynu gelinay bal hadda sell aynu idhaahno okay hadda wuu naga yeelay marka hadda wuxuu naga yeelay in suuqa laynaga saaro oo laynaga salgareeyo markuu yimaado 2500 oo markaa waa qaybtii stop loss-ka marka option-kan TB/SL sidaad aragtaanba wuxuu kaa yeelayaa uun markaa hal option ama take profit ama stop loss marka magacu yaanu ku khaldin si option-keen u baahnayn markaa aynu u isticmaalno ee video ku saabsanaa horta orderkan aynu iskan cancel garayno kadibna aynu khaanadii hore ku noqonno optionka aynu u soconno ee markaa inaga yeeraya in labadaba hal mar aynu ku wada xidhanno waa optionkan conditional marka hadda conditional ayaa inoo dooran bal marka hore aynu ka horeyno take profit-ka tusaale ahaan aynu gashanno 3000 ama 3500 oo kale tusaale ahaan marka la marayo in suuqa markaa laynaga iibiyo oo aynu faa'iidadeena qaadanno qaybtan hoosena market ka dhigo qaybta quantity-gana tusaale ahaan anigu halka Ethereum-ba waan iska iibinayaa
kadibna waxaynu leenahay sell. marka hadda waa laynaga yeelay sidii caadada ahaydba oo orderkii waa laynoo diiwaan geliyey si aad u aragtaan. mar labaad bal aynu markaa samaysano stop loss inagoo halkan yaraynayna maadaama hadda ethereum ay marayso saynu soo sheegnay 2689 tusaale ahaan 2000 markay soo gaadho ayaad leedahay xaaladdu way ugu xun tahay khasaarahayga hala dhimo. qaybtan markaa quantity-gana anigu waxaan leeyahay dhammaan ha layga salgareeyo kadibna bal aynu ku dhufano markaa sell. wuu inaga yeelay waad aragtaan waa order submitted. saad halkan uga jeedaanba labadii orderba waa laynoo diiwaan geliyey. marka hadda waxa inoogu xidhan take profit iyo stop loss ayaa inoogu wada xidhan. runtii optionkani aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay markaa dhalinyarada traderska ah ee runtii suuqan ka trade gareeya. exchange-yada badankooduna way leeyihiin sida hadda Bybitkan oo kale OKX waa leeyahay, Gate waa leeyahay, L-Bank wuu leeyahay. exchange-yada badankooda runtii optionkan waa ay leeyihiin intaan arkay. marka waxaan rajaynayaa khiyaarta in muuqaalkan aad wuxuun ka faa'iideen tan iyo muuqaalka kan inagu xiga waxaan kaga tegayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.